nin reer baadiya yaa magaalo soo galay oo bukooday oo dhakhtarka la geeyay xogaha kaniin baa la soo siiyay kaniinkii xumada iyo qandhada dadka reemigu daw afka laga isticmaalo ma yaqaanaan waxay yaqaanaan ay caqiidaysan yihiin wadaad u tago qardhaas u qoro qardhaas waa taqaanaan banu malayn xirsi waa tiraahdaa qardhaas dadna meelaha ku xidhaan oo iska bogsadaan marka kaniinkii la soo siiyay bacyar buu ku xidhay inuu isticmaalay baa la mooday maalintii dambe la wareysto lagu yiri war bal ma la naato dawadii ma qaadatay haa dawadii ilaahay waa igu shaafiyay buu oo adoo cunayba lagu ma arkine cunaya wax la cunaanu ma arkine bacdi yareed iyo wixii ku jirayba mana ku duuduubto halkana ku xidho ilaahay waa igu shaafiyay buu والله فيرسو يقينته عجيب qofku hadduu sheegay yaqiin u qaata baa leeyahay walow sheegaasi haba noqdo shay aan saxayn ilaahay uu ku imtixaama manfaco baa ilaahay ku soo dhaxgalin wixii bani aadamku ay sameeyeen ayaa dadku maanta ku kalsoon yihiin maxaan ugu kalsoonaan weynaa warka ilaahay warka nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam nin baa nabiga u yimid oo yiri xalaytooda dabaqaloc bay qaniinay laxawgiisiba ka saxan lahaa أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك بالنبي حداد أورن لحيد كلمة داس حلقات قلبيستي أعوذ بكلمات الله تامات من شر انت أصلا حداد أورن لحيد بالنبي كويري كما بردبان با حبك هم قادم با خبر كالنبي محمد ونوشيق عليه الصلاة والسلام خبر لجربي معها وخبر يقينية يقين ومحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هل قسم أن يقول سوى ختمة ذاتك الصدى اللوردس كو ختمة ما هنا نن لو رجل بشر بن حارث وبشر الحافي معروف علماء هذه الأمة بكمدها قرن قلة بعض أقل كيس وحال لقو سمين جري الرخص رقص لقو داس جري ولقو عيار جري نين ودادا والشيخ أي إرديس السوء تاقي مركاسو نينكي بوابكي البابك تاقنابو كويري أقل كان نينكي إسكاله محربا مسوا الضوء bariga adooma adoonka jiri moogtaan marka wuxuu qaatay adoomihii kale markaas may waa sayid waa isaga sayid buu waa xor waa sayid isaga adoomalo waa nin xor ah ha illa waa nin xor buu wax aqalkiisa sida loogu ciyaarayo waa ereyga kaliya uu ka dhaqaaqay bashar bin al-haris al-hafi dushu ka arkaya uu soo dhaadhacay ninkii bawaabkiiba uu tagu ku yiri war nink odagii aaway meesha taagna uu dhaqaaqay muxuu ka yiri su'aal buu weydiiyay wuxuu igu yiri ninka aqalkan lagu daasay lagu ciyaaraya iska leh ma xorba mise waa nin adoona de maxaad ku tiri markaas aan ku yiri buu de waa nin xor ah de markaas uu igu yiri ha ila waxa aqalka ila waxa aqalkiisa si loogu ciyaarayo ila waa sida waxa aqalkiisa loogu ciyaarayo bashar bil haris lil ma ka daadto wuxuu yiri may anu mayhi buu xor bal adoon ilaahi baan ahay buu هذا الكلمة ونكها يري أيا قلبي يسكون بعدي بالليل وعجاجنا كما مسجدا عجاج بواقع كقصة بحو شيخ يقول كده بتج كمان نقول قال كيسي بالليل مساجد بوجلي تاب توبة نصوحة حلقات العلم يجيبوا فريستين عالم من علماء الأمة الإسلامية بالنقضي بل وحكم النقضي مربيتي إمام أحمد بن حنبل رجي وحبري الصوت بيديه وكم النقضي maalin maalmaha kamid isaga laftigiisa waxa uu soo maray isagoo gaajoonaya oo maalmadan sidoo cilmiga u dhiganayay darsiga uu ugu jiray ayaa calooshiiba iyo dhabarkiiba isku dhagay lacag yar buu haystaa wuxuu bal maanta magaalada tago ceeshir soo iibso suuqa markuu soo galay ayuu arkay magaci ilaahay allah warqada ku qoran tahay oo halka ma aragtaan masbalada meesha qashin qubka la ilaahay xashiishku yaala dhaxtaala
warqadii buu ka soo dhex qaaday baa bulaacadii saasuu ka soo saaray meel buu la yimiday biyo fiican oo taahira buu ku maydhay cadarlaha ayuu tagay lacagtu ugu talagalay inuu ceesh ku soo iibsado waa nin ahlu sufaa طالب العلم maalmadan aan waxba cunin intuu ka booday cunadiisii cadarlaha intuu tagay buu lacagtan baan haystaaye cadar yar igaga iibi buu in yaro intaad goyso maxaad ka dhigi waxba ka dhigi adigu si uu ka soo qaatay cadarkii markaas warqadii buu hareeraha kaga shubay magaci ilaahay baa ku qoran ilaahay udgoon buu ka dhigay udgoon oo dhunkaday uu soo laalaabay meel fiican buu kana meeshii buu dhigay habeenkii buu seexday manaan haatif baa ku yidhi yaa bashar sidaad magacayaygii aduu udgoonaysiisay ayaan annaguna magacaaga ilaa qiyaamaha kor u qaadnay baa lagu yidhi waa warqad magaci ilaahay ku qoran yahay imisa muslimiina maanta qalbigooda laa ilaaha ila allah baa ku qoran laakiin cid gacanta soo qabato masaajidda keenta markay waayeen istaxwada calayhim ashaytaanu fa ansaahum dikra allah haddii warqad la yidhi darajad baad ku heshay oo ilaa qiyaamaha kor baan ku qaadnay la yidhi muslimkaa dayacan haddaan gacanta soo qabanno oon masaajidda keenno oon cilmiga culummada ku soo xidhno oo salaadda ku soo xidhno oo jamaca muslimiinta ku soo xidhno intee baa ilaahayna kana kor inoo qaadayaa dacwadda iyo diinta dadaalkeega culummada keliya ma saarnee dhammaanteen xil baa ina wada saarane xilkaa diineed ilaahay baa ina saaray oo nebi maxamed ummaddiisii maadaamuu ilaahay naga dhigay diinta shaqadeeda waan u wada dirannahee inaan diinta shaqadeeda u wada kacno wada niyooda insha allah diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxaa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaada la aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii un ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysii way siisay odaygii aabbihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu yidhi aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiibu hoosta ka yareego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adiguye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadii unbuu ku yar wareego hooyo lacag isiiyo maxaad ka dhigay oo abaanka way siisay hooye moogtaa hooye macaan uu keeno uu ka qaado dabkii unbu haddana ku tuura keena bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee oo u tago hooye 1,000 shilin isiiyo war lacagta baryahan aad iga gurto horta halkee geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabbaa igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo unbuu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee orad magaalada u gal odayga waa mithaal yani mathal xataa tafhamu uu shaqo tegey dad markaa wuxuu arkay nimana qaldhisaya buu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaas oo 1,000 shilinoo uu la shaqo tago aduu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo hoo markaasuu uu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaalidee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba sooniga gubayey ma maya aabba tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay masalkaas shaygan marka uu maal iyo wakhti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa nin sheekha bari qisan nooga sheekeeyey wuxuu yidhi nin caalima oo ardaydu aad u jeclaayeen xerta aad u jeclay iska daa xerta mujtamac oo dhan ba aad u jeclaa akhlaaq wanaagsan buu ilaahay siiyey
taqwa baa ilaahay siiyey cilmi baa ilaahay siiyey alla ka cabsi baa ilaahay siiyey laakiin ninka wuxuu ilaahay ku hagaajiyey islaam kulul oo dabeecad adag oo markuu inta uu magaalada socdana kabihiisa inuu qaato looma ogolo masalladu ku tukanaya inuu qaato looma ogolo aqalka markuu galana islaanta ku shaqaysata daribuu karin biyuhu dhaamin dabkuu shidi iyada dhanbu cuntada siisiin markaasay odhanaysaa magaaladu sheekh bay ku haysataaye aniga agteeda shaydaan baa tahay ii khidmee bay odhan hadal ka keeni maayo uu khidmayn uu khidmeeyaa uuna ma hadlo ma sheekeeyo awal aqalka gudihiisay ku dirdiran jirtay baa layidhi markii dambe waxay ku tidhi anu haddee toola waan daale xaabada ii soo guro biyahana ceelka iga soo dhaami ceelka ninka sheekhana waa ninka magaaladu kabihiisa inuu qaato uma ogolo jacaylo iyo ixtiraam ay u qabaan markaasuu yidhi ilaahow astur ilaa haddii la ogaado sheekhii xaabo guraaya oo biyihiina dhaaminaya dadka waxay odhanayaan war sheekha aqalka dhib baa ku haysatee inkaar qabtadan waa maxay sheekha dirata waa la habaarka ku dhici taabuu markaa uga baqayaayo wuxuu yidhi ilaahow miskiinta aadii xaaska aad iga dhigtay umulciyaalka ilaahu ha igu hujina maanta igu astur magaaladii buu ka baxay ardaydii buu muraad yar baan leeyahay iska hadhan buuro marka xaabadii buu soo guraya dhul cilmuu tagay xaabadii buu soo guray meel buu ku ururiyey biyihii buu dhaamiyey ilaahow aniga islaantaas ilaahow islaantaay ummadda kale ilaali buu yidhi libaax socdo unbaa u yimid oo hor fadhiista la yidhi sheekh xaabadiiyo qorihii buu saaray libaaxii biyihiina dhinaca kaleu ka soo saaray magaaladiiba la soo maray sheekhiioo libaax wata markaasaa la yidhi awalba inuu mu'min ilaahay ku xidhan oo karaamo le waan ogeyn inuu ahaaye maantayba karaamadiisii daahirtaa la yidhi albaabkii buu hor dhigay islaantii meel bay ka faawisto libaax bay aragtay alaabta u soo sidaay ilaahu inuu soo gelin libaaxaas ilaahu libaaxa igu soo gelin dibaddiibuu markaa libaaxii joojistay halkiibuu kaga dhaadhiciyey xaabadii biyihii libaaxuu iska socday isagaa markaa xaabadii aqalka soo geliyey biyihii buu soo geliyey markaabay ku tidhi dameerka foosha xunne maanta soo rarteen ayaa kugu caawiyey ka tiri nabiga ku salliya inna kayda kunna cadiim ilaahay baa sheegay soo maa hadda way arkaysaa indhahayga ilaahay inuu u gargaaray ninkaas maca daalika haddana ma sadaqayso waxay ku leedahay war dameer fool xumaad wadata maanta xagga ka keentay iska aamusay markaa muddo yar kadib islaantii baa ka dhimatay sheekhii maadaama islaantii ka dhimatay iyadoo aanan la ogaan dhibta isaga ay ku hayso dadkii iyo magaaladii baa isku tegey waxaa la war sheekha gabadh wanaagsan oo akhlaaq wanaagsan oo xaaskiisii hore kaloo lamida waa in loo doondoonaa gabadh wanaagsan baa loo keenay oo sheekha qadarkiisa garanaysa daadna ma aragtaanay markaasaa haye aqalkii baa loogu hooyey dee waxay tidhi way og tahay sheekhu inuu libaax soo raran jiray ma og tahay iyadna waxay leedahay sheekhu libaaxiyo wuxuu soo rari doonaa iyo maaragtaanay libaaxii baa biyaha iyo xaabada kuu keeni doona dee markaabada sheekh xaabadii iyo biyihii way naga dhammaadeene markaasuu yidhi dhib male iska fadhi insha alla ilaahay baa noo keeni dooneen dhulkii buu tegayey buu tegey libaaxii ma iman dee markaas isagii baa markaa ay noqotay inuu xaabadiina soo guro biyihiina soo qaado markaasuu magaaladii la soo dhex maray waran inkaar qabtada sheekha aan u dhisnay ee sheekha rartay maxay ahayd oo sheekh libaaxiina mee baa lagu yidhi wuxuu yidhi libaaxii islaantii hore iska lahayd buu nabiga ku salliya akhlaaqda allah ayna siiyey innaka yacni qisadaasi waxaan u soo qaatay haddii akhlaaq wanaagsan aad leedahay dadka ugu xaqle inay arkaan waa dadkee waa dadka guriga jooga caaisha radia allaahu canha baa nebiga la weydiiyo lagu yidhi nebiga akhlaaqdiisa ka warran baa lagu yidhi aqalka markuu joogo siduu ahaa marada ka googo'day buu nebigu karkaran jiray tiri kabta ka go'dana isagaa gacantiisa ku tolani jiray neefkiisana isagaa maalan jiray annakana aqalka dhexdeeda adeeg waxaan u baahanay buu noo qaban jiray tiri laakiin salaaddu hadday gaadhay tiri caaisha nebigu salaaddu uu soo bixi jiray bay tiri ninkee baa maanta odhanaya
intuu xaaskiisa ku yidhaahda iyo hablihiisa aabba bal maanta nasta anaa dhariga inii karan muu jiraa aniga maanta dhari karinta igu daaya ma dhici karto waxaaban u aragnaaba ihaano inay tahayba inuu ninku reerkiisa u khidmeeyaa uu xaaskiisa u khidmeeyaa uu ubadkiisa u khidmeeyaa uu noqdaa nin adeegayo akhlaaq wanaagsan waxaan u aragnaaba nin doqon oo islaamku ay ka adag tahay inuu yahay khuluq akhlaaqda nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofkii ugu horreeye ka markhaati kacay akhlaaq wanaaggiisa waxay ahayd xaasaskii rasuulkeena u naxariis badnaa u dhibrin badnaa marka qiyamkaa wanaagsan buu nabigu mujtamaca la dhex marayay mujtamaca reer madiina abu dardaa maskiidka isagoo fadhiyaan inuu yimid oo yidhi war aqalkaagii dabbaa in yaruu jiree kacoo ka gaadh ma gubanayay buu ka yidhi haddana ku kala u yimid abu dardaa ma tihid haa aqalkaagii dabbaa in yaruu jiree kacoo ka gaadh ma gubanayo ku saddexaad baa u yimiday sidii asilay kii afraad baa u yimid oo yidhi dabkii markuu aqalkaaga u dhowaaday iska baktiyey abu dardaa wuxuu ku jawaabay ma taqaanaa qad calimtu ana allaha lam yakun liyafcala dalika buu yidhi waan ogaa inuu ilaahay aqalkayga uu dabka iga qabadsiinayo dabkaasi aqalkayga inuusan gaadhayn baan ogaa buu yidhi anigu markaasay yidhahdeen labadaadan hadal eed ku kala hadlayso keebaa la yaab badan bay ku yidhahdeen ma kii aad dadka ku lahayd aqalkaygu ma gubanaya iska noqda mise ka dambe aad leedahay waan ogaa ilaahay aqalkayga inuusan dabka iga qabadsiinaynin waxaan sidaa u idhi baan nii sheegi buu yidhi nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay isaga oo leh gabalku markuu dhaco iyo marka waagu uu baryo ninka ducadaa akhrista allaahumma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta calayka tawakalt wa anta rabu alcarshi alkariim ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم waxaan ka maqlay buu ducada nabi maxamed oo yiri ninka galabtiina mar yiraahda subaxdiina mar yiraahda hadduu galab ducada yiri ilaa waagu ka baryaayo masiiba kuma dhacdo buu rasuulku yiri hadduu waagu markuu baryo uu yiraahdo ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho bal fiirso ducadaasi maanta innaka waa noogu qoran tahay kutubta iyo ducooyin fara badan oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam laga wariyay laakiin kalsoonida iyagu ay qabeen iyo kalsoonida maanta inagu aan qabna ka warrama isku mid meeta kalsoonidu waa shay cajiib ah shayga qofka bini aadamku uu ictiqaadanahay ilaahay nafcigu u dhaxmariyaa baa leeyahay walow shaygaasi haba noqdo shay beenaba ha noqdee